gaalkacyo muddo dheer ayay waxay ahayd meesha ay ka aloosan tahay qalalaasaha siyaasadeed iyo colaadeed ee Soomaaliya waxay noqon kartaa meesha nabadda Soomaaliya laga soo dabaaro waxay noqon kartaa meel tusaale wanaagsan u noqota Soomaaliya waxaan qabaa in 40 sano ka bacdi la wada daalan yahay inaan cidna aysan hal ugu dhalin ama aysan caano ku maalin qalalaasihii iyo dhibtii iyo kala qaybsanaantii waxaan qabaa marka sawirkan sawir ka gedisan in reer gaalkacyo maskaxda ay ku qabtaan oo raadiyaan oo iyagu Soomaaliya ay raadiyaan oo gaalkacyo cusub iyo mudug cusub iyo dareen cusub ay ku wada shaqeeyaan meeshaan waxay noqon kartaa waxay maanta tahay wax aad u gedisan waxay noqon kartaa xarun ganacsi bay noqon kartaa Soomaaliya bahalkii hormuudka waxay noqon kartaa xarunta midnimada waxay noqon kartaa meesha laga raadiyo dawladda Soomaalida federaalka oo aan dhisayno marka reer gaalkacyo waxa saaran wax ka weyn waxa isku hayaan xil inta ka weyn baa saaran wax inta ka weyn bayna noqon karaan taa ayaa naga niyada naga qorsho ah naga dadaala oo aan waxba u laharayn waxaan idinkana idinka mahadnaqaynaa dadaalka weyn aad samayseen hawshaanna waa hawl aynu u dhannahay nabadgelyada iyo wada jirkana waxaan rabaa inaan xoolaheena ku samayno iyo xooggeena iyo maskaxdeena meelna in marti looga noqdo marno waxba iska daba ka wareegaan inoo dhalimiyaan arrintaas waa mas'uuliyad weyn oo dhammaanteen ina saaran waay waxaana rabaa hormuudkeeda inaad qaataan reer gaalkacyo odayaashu inay qaataan mise waxaan ka dulooynaa qabrigii Cabdullaahi Yuusuf iyo Caydiid oo iyaguba 26 sano ka hor magaaladan heshiis ka gaaray iyo odayaashii dhintay ma awoodi karayno xilli walba dadkiisu leeyahay marka waxa loo baahan yahay in la qaato waajibaadka loo baahan yahay dad kale uma dhalanaya magaaladan dad kale meel kale uga iman mayo